madaxda dhaqanka ee deegaanada Hawdiya Hargeysa oo uu hogaaminayo ugaaska guud Axmed Cali Mahdi kuna weelinaya salaadiinta kale beelaha Arab ayaa shir jaraa'id oo habeennimadii xalay ku qabteen gudaha Balligubadle kaga hadleen arrimo la xiriira Sheekh Cabdixaaq oo muddooyinka dambe ku sugnaa gudaha Balligubadle waxaana ka darin ciriyeen hadallo ka soo yeedhay qaar ka mid ah culimada Soomaaliland ugu horreyn waxaa halkaasi ka hadlay maayirka degmada Balligubadle waxaanu ka xaal waramay Sheekh Cabdixaaq waxaan ballan qaadaynaa ayagoo salaadiinta iga dambeyn doonto waxaad ku fadhidaa dhablibaax baad ku fadhidaa cid ninka meelaha ka hadlayo iska hadlaad sidoo kale waxa hadallada iska daba maray Suldaan Barre Xaaji Xuseen Caraare Suldaan Xuseen Xaaji Cabdi Ugaas Ciise Suldaan Cabdilaahi Layd gudoomiyaha dhalinyarada Nageeye iyo Suldaan Maxamed Foolgaawe waxaana hadalladoodu dhammaantood ku qotosanayeen sida tan halleedii nimanka culimada ee waxa laga sheegayaa afxumayn laga sheegayo waxaan halka ka leeyahay wadaad xumeeyelka ama u gurmanaya caawa maqluuqa caawa dhibaataysan baad ka baxsan lahaa waa midaan raalli ka ahayn waa midaan u ogolayn dhagtayadu inay maqasho midaan ogolayn wey cabashada ka soo gaadhay gobolka inaga soo gaadhay ee jaadku ka uu yahay meeshay leeday waa kaga hawlgelaynaa haddii aan la yidhaahdo in badan baa beeshan la odhan jiray odayaasheedu ma wada socdaan waxaan horta idin sheegaynaa maanta inay wada socdaan gobolkani wuxuu ahaa Soomaaliland hooyadeedii laakiin wax badan baa ka maqan gobolka manaan garawaa inaanu hadallee waxaan ka xishoon jiray in badan inaanu reer ahaan u hadallo reerkii Soomaaliland aabba hooyada u ahaa waxay ka hadlayeen qoys waa sheekhayagii waa inankayagii gobolku u dhashay nimanka meelaha ka hadlayo haddaa wax reesina haysaan oo qofka lagu eedayn karo soo hor fadhiisto kaalaya marka ninka wax dacaayadeenaya waxaan leeyahay dacaayada jooji haddii aad xanuunsanayso ka soo qaybgal ka soo qaybgal sheekha dawadiisa ka soo qaybgal ugu horeysiinayo aqalkan inuu caaw fadhino madaxweyne Siiraanya dhisay isaguna uu ku mahadsan yahay iyo horumarka ballaaran inuu gaadhnay nin waliba meel buu soo gaarsiiyay waxaan leeyahay war fooqa quruxda badan ee guryaha quruxda badan ee Hargeysa ka dhisan iyo Soomaaliland warqaabkii ay ugu sii horumari lahaayeen Soomaaliland ka tashato halkaasi ayuu dadka kaga xoreeyaa isha iyo sixirka iyo hadii Ilaahay badaka leejinkaba halkii Soomaaliland laga xoreeyay jooga halkaasi ayaanu dadka kaga xoreeyaa wixii dhibata Sheekh Cabdixaaq oo isna halkaasi ka hadlay ayaa sheegay wala oga waxa weeyaan walaalayaal haddana waxa weey waan imid umad fara badan Ilaahay subhanahu wa ta'ala ayaadkii ku anfacay مقفة وإلهي سبحانه وتعالى إتكسته ده أما وحتري أما وحديه ربطين تبع أنا وحيجة تعافس أحمد علي مهدي وجاسك جودة بلها ربع ياسي هذا جوجا هذي الرماح الشيخ عبدحاق يا حالة نبضين بلها كدر ريا قبل هذا بري Somaliland هل كان يشوفنا وقبل كي حودوا Balligubadle نين Balligubadle شوجا عدوا دعانا يسا أما كلمة أما أوهن شبيسة وحنا ملينا يا ميدالن ولي عبد الحق وتشوجيا ورضانيا ونتشوجيا ولا لها يا جبارجة الدجال سن درتو كده حيسو وحنا لنا هي أقوى ويا شوتشي الدجالك أو dadka nabadda ka shaqeynaya u dhagan nuglaada kunaanadkii shirkaasi waxa soo afmeeray suldaanka guud ee beelaha Arab Suldaan Umar Suldaan Maxamed Suldaan Faarax waxaanu si kooban uga hadlay haddii qof muslim oo qaldan u arko dariiqi wax loo saxaa islaamku baray maaha in inta meelaha la istaago la yiraahdo hebel baacayn kari hebel baacayn kana iyagu way garanayaan qolada culimada iyo meel islaamka ka jirtaan ma garanayo